waxaa raggii dhex martay sheeko qaaya leh. dooddu waxay ku furantay warsame oo raggii uga faallooday wixii kala qabsaday ayaa su'aal dulun ku jiro weydiiyey waasuga iyo warsame oo yidhi, haddaad rixun daraaddeed dhibaatadaas u marteen, maxaad waasuga iyo warsamow ka yeeli lahaydeen hadday ahaan lahayd halgeel? warsame ayaa inta si yastini ku jirto u qoslay oo asaga iyo waasuga isdhugteen hadalkaa ka yidhi, ma waxaadan maqal ninka iyadoo laga sugayo halgeel ah guddigii u keenay ri, markii sababtii la weydiiyana yidhi, ridu labo ragga ayay la wadaagtaa, waana haarka iyo hareedka. labana naagaha ayay la wadaagtaa oo waa laabjilayca iyo labada naas. laba geela ayay la wadaagtaa oo waa qatinka iyo qarjaamaysiga. qarjaamaysigaas oo micnihiisu yihiin in marka dooggu dhammaado ay geedaha sare qoryahooda iska ruugaan wakhtigana ku dhammaystaan jiilaalka ah. labana looda ayay la wadaagtaa oo waa geesaha iyo gaduudka. labo fardaha ayay la wadaagtaa waana gurdanka iyo gooha. midna waa u dheeri oo iyadoo 2 jir aan gaadhin ayay 2 jir dad kaashibisaa. odagii reer magaalka ahaa oo laftiisu isku wada inuu wax weyn ka yaqaan dhaqanka Soomaaliyeed ayaa hadalkii qaatay oo yidhi, warsamow, haddaad ariga ku tilmaantay midka xoolaha ugu qiimo badan, waxaad noo caddaysay ama noo caddaatay inaadan geel lahayn, ogaalna u lahayn waxtarka geelu u leeyahay dadkeenna. waxaase warsamow iga su'aal ah ayuu yidhi ninkii, marka aad sidaa u hadlaysid, ma waxaadan maqal gabaygii geela ee Cumar Isteeliya oo ahaa, ajal dhimatay oo 2 qolo eedi kala gaartay, afyaraha hadday soo gurtaan nimankii aarsaayay, akhyaar iyo cuqaal loo guriyo odayo loo soocay, wax aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto 100 awr ku dheer yahay haddii ooda laga qaado, markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaawaaye adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysaane. markii gabaygii la dhageystay ayaa reer magaalkii oo dhan si hiilo ku jirto u qosleen. qaarkoodna inta soo joogsaday salaan hambalyo u dhiibay ninkii asaga ahaa. markaasuu asaguna markiisa inta joogsaday raggii oo dhan gacan qaaday. oo intaa kuma ekaysane dadkii dibadda fadhiyana yara qooraansaday, bal in dumarku qoslayo iyo in kale. waasuge iyo warsame aad ayay uga qiiroodeen markii ay arkeen sida reer magaalku iskugu camirayo sheekada. waxaana ayagoo aan iska warhayn mid waliba umuurtaa ku xasuustay mahmaahdii ahayd, nin geed u buuxo ayaa gari u go'daa. maalintaa waasuge iyo warsame yara waxay tabeen odayaashii abwaanada ahaa oo reer miyiga ahaa oo ay mid u yaqiineen. isgarabsiga reer magaalku wuxuu odayaashii ku abuuray qab iyo qiiro. midkoodna welwel kama qabin in suugaanta Soomaaliyeed looga guul helo. waa rag ku gaboobay kuna caanbaxay aftahanimo iyo waayo aragnimo. iyadoo la bulaamayo oo reer magaalkii madaxyada isku garaacayo qosol daraadiis, ayaa waasuga inta giddigood isha la raacay oo warsame garabka jug ku siiyey qosol yar dhag ka siiyey. markaasaa inta la aamusay asaga la soo wada dhugtay. waasuge waxaa sidaas ugu sugnaatay
in hadal laga sugayo. markaasuu inta si la yaqaan fadhiga ugu nagaaday tusaalooyin hujuun ah hadalkii ku bilaabay intuusan hirarkiisii furfurin. isla markiiba wuxuu asagoo ku luuqaynaya reer magaalkii u tirshay gabagii Faarax Nuur oo ahaa: haddaan doono waan dhihi karaa diigashiyo faane, anoon diririn waan ridi karaa daqara waaweyne, dadka eebbahay caabudkiis baan isaga daayay. diradirayo waan geli karaa dulan islaameede, duddo nabad ah waan geli karaa dab iyo qiiqiise, inna miim cadaab dalaq la siin baan isaga daayay. shimbir duulis badan oo dhulkii degi aqoon waayay, kol uunbuu libaax labadiis daan dalaq yidhaahdaaye, inay edebtu shay dooro tahay baan isaga daayay. daliil gabay ah diin iyo xigmad, daacad iyo waano, doraad iyo midaan shalay lahaa duug hadday noqotay, inaan dhegaba hadal deeqahayn baan isaga daayay. warsame oo markii hore ku talamayay halkuu tafyada ka saari lahaa reer magaalka ayaa asaguna is yiri: waa inaad tusaalooyin ay la dhakafaaraan ku daba kartaa hadalkaa qaayaha leh ee waa sugay. markaasuu iyadoo dadkii weli ku sii jeedo waa sugay oo wax kale laga dhowrayo, inta si lama filaan ah hadalkii u qaatay raggii u tiriyey gabagii Cabdulaahi Muuse oo ahaa: durdurkuba hadduu dhagax dul maro dihanka qoy waaye, meeshii daleeday biyuhu doog ka bixiyaane, dadkuna haddii wax loo sheego ways darajo dhaamaaye, alla dooriyaay hadalku waa kaaga darayaay. dawa ma laha naag xume hadday diiddo waanada darbo iyo diliin iyo inaan derisba kaa yeelo, saddexdaa mid baan kula damcaye adigu soo dooro. dhowr qof oo reer magaalka ka mid ahaa ayaa mar kaliya wada booday ayagoo warsame ku eedaynaya inuu meel uga dhacay. waxay ka xumaadeen sababta uu warsame u soo daliishaday gabay loogu hanjabayay naag la dhaliilay, iyadoo lala hadlayo maqaawiirtaas sharafta leh. waxaa kaloo ay rumaysan yihiin inuu warsame murtida lafteeda meel uga dhacay oo dariiqeedii ka habaajiyey. maxaa yeelay wuxuu gabaygan ugu isticmaalay meel uusan ku habboonayn. waxaa hadalkii qaatay nin reer magaalka ka mid ah, uguna eraya kulkululaa dadka warsame eedaynayay. wuxuu yidhi: marka aad ku isticmaalaysid mahmaah ama murti kale, waxaa warsamow la tixgeliyaa qofka aad la hadlaysid, waxa aad ka hadlaysid iyo meesha aad ku hadlaysid. reer magaalku waxay ka cabanayaan 4 bayd oo gabayga ugu dambeeya oo ujeedadoodu ka kooban tahay naag xun oo loo hanjabayo. warsamana markuu gabaygan soo daliishanayay waxaa u muuqday 3 bayd oo gabayga ugu horeeya, kuwaasoo guud ahaan u tilmaamaya inaan dadka qaar hadalku wax u tarin, sida uusan durdurku doog uga soo saari karin hadduu dhagax dul maro.
dhexaad ah oo reer magaalka ka mid ahaa maantoo dhanna aamusnaa ayaa ka baqay in sheekadu xumaato. wuxuu arkay rag aad u buunbuuninaya waxyaalaha muranka dhaliyay. wuxuu kaloo ogaa in haddii laysu caroodo ay sheekadu ka joogsanayso, murtida iyo xigmadana la seegayo, maalin walbana aan laysla helayn maqaawiir wada waaye arag ah. ninkii wuxuu goostay inuu sheekada bedelo oo meel kale oo kaftankeedu xiise leeyahay dadka u sii jeediyo. wuxuuna ku bilaabay, waa sugow, waxaad nooga warantaa reer miyigu qabyaaladii ma iska daayay, iskoodse wax ma u qabsadeen, oo ma yihiin dad la socda waqtigan kacaanka ah. markii su-aashaa la soo jeediyey ahna mid ka baxsan sheekadii hore u socotay, ayaa dadkii oo dhan wada aamusay, taasoo ka dhalatay in markii hore qof waliba ka fikirayay wixii uu ka dhihi lahaa doodda markaa socotay, qaarna uu kaba faalloonayay wixii hore loo yiri. waa suga markii waxoogaa aamusnaa ayuu ninkii u jawaabay oo yiri, inkastoo aan ku kala nool nahay udub iyo afaaf, haddana waad ogsoon tahay oo reer miyiga iyo reer magaalka waxaa laga wada xukumaa meel kaliya. reer miyi iyo reer magaal maqaawiirta meesha fadhiday markuu waa suga intaa yiri waa la wada qoslay. waa suge asagoo hadalkiisa sii wata ayuu haddana yiri, tan labaad, waad og tahay oo dadkoo dhan ayaa qabyaaladda laga xaaraantimeeyey, si caddaan ah ayaana dowladdu dadka ugu sheegtay umuurtaa iyada ah, reer miyi iyo reer magaalba. waxaa kaloo la wada ogsoon yahay in dadweynaha Soomaaliyeed uu si wanaagsan u aqbalay taladaas iyada ah. maxaa yeelay waxaa Ilaahay quraankiisa ku yiri, alla iyo rasuulka cabsada, wixii madaxdiinu idin fartaana u hoggaansama. dad badan ayaa ra'yiga u khushuucay oo aamusay, qaarna madaxa ruuxay. nin reer magaalka ka mid ahna si tartiiba ayuuba aqalka uga baxay. sababti keentay ama ku dhalisay lama oga. waasuga wuxuu intaa raaciyay, dowlad waxaa ugu wanaagsan tan amarkeeda si caddaan ah u fulisa. wuxuuna u cuskaday oo u soo daliishaday mahmaahdii ahayd, 3 waxyaalood dad looguma taliyo: garqalloocan, guddoon jilacsan iyo gacan guran. waxaa hadalkii qaatay Warsame oo markii hore ku gaagaxay murankii ka dhashay gabaguu u soo daliishaday inaan reer magaalka war loogu taag helin. wuxuuna ku bilaabay, sideedaba idinka ayaa reer magaalow nooga fara dhuudhuuban fidinta qabyaaladda, welina ka sii daba hanqal taagaya. idinka ayaa afkana ka dhowranaya, ficil ahaanna wax ku maamulaya. annagu waxaan nahay dad xusuus u leh dhibaatooyinkii ay qabyaaladdu hore u soo marsiisay. waxaan maskaxdayna ka go'ayn dadkii sida sahlan ugu qurbixi jiray dagaal si macno la'aan ah uga dhashay beer, daaq iyo biyo, kuwaasoo qolaba ay qolo u sheeganaysay. waxaa kaloo aan cidna ka qarsoonayn sahalkii mar kaliya dhibaatooyinkaas looga baxay iyo sida dadweynaha Soomaaliyeed uga raystay. Warsame wuxuu arkay
inuu hadalkiisu dadkii saameeyey oo madaxa loo wada ruxayo. markaasay isku kalsooni hor leh ku sii abuurantay. waxaa hadalkayga u markhaati ah idiinna caddaynaya fikradda aan ka qabno qabyaaladda, ayuu markaa raaciyey hadalkiisii. mahmaahdii aan hore u nidhi oo ahayd ninkii xigaalo kuu sheegta xawaalaha ayaa la tusaa, ninkii xoolo kuu sheegtana hooskiisa ayaa la tusaa, oo loo sheegaa inay sida hooskaa xooluhu u wareegayaan oo hadba nin la joogaan. waxaa kaloo reer magaalow aad si daacadnimo darra ah uga dhiga daarsateen waanadii iyo ducadii qabyaaladda lidka ku ahaa uu mar walba soomaalida u soo jeedinayay abwaankii wadaniga ahaa xaaji maxamed axmed liibaan, oo aan ka xusuusto ayuu yidhi waasugi. qasadkeeda soomaali alluhuu qawiyeeyo, reer qabiilo fulaanna rabbigay ha ka qaado. qalalkii nagu raagay qod kaleeta ha aado, wax dhanbaan qulbanayne qalbigeennu ha nuuro. markuu intaa yidhi ayaa waasuga xusuustay heestii kale ee isla sheekh maxamed axmed liibaan uu tiriyey markii gobonimada la qaatay kadib. xaaji maxamed wuxuu aad u saluugay sida foosha xun oo wax loo maamulayay, wuxuuna fikraddiisa ku muujiyey hees alifkaya ah, laakiin waasuga uu beydadkii ugu doorroonaa ka soo qaatay. wuxuuna yidhi yaabayay soomaaliyey dadku waa kan yaacayee, hadalkii yaqiinahoo aan la yeelin baan arkaa. toltol waan ka soo tagnoo xurriyaan tabteed helnee, ninkii tiisa waayayoo u la tooxan baan arkaa. jamhuur dowlad noo ahoon baarlamaanka joojinaay, jil ekaysi baan rabnee naf jeclaysi baan arkaa. khilaafkii soomaaliyey kharibaadda noo lahaa, raggaan khaas u dooranno iskhayaanayaan arkaa. farxaddii soomaaliyey fahmadeedu daad ahayd, raggii foolhoraad noqdee farku taag labaan arkaa. quruntaan ka qayb galno quwaddiini baan qabnee, in qabiiladii qumi diiday baan arkaa. mahad baa inoo ego macdan dowlad baan helnee, rag muraayadii jabtoo madmadowla baan arkaa. hantidii rabbaa hayoo inta haybinaan helnee, shalay gaal u hiiliyaal naga hooshayaan arkaa.